Assalaamu calaykum asxaabteeda qaaligan lagu soo dhawaada. Maanta waxaan idiin haynaa filim aad u macaan. Filimkaas oo ah filim Chinese ah, wuxuuna ku saabsan yahay rag asxaaba oo u socda dagaal ama ay ciidan dagaalamayaan kale. Kabacdi waxaa ku dhacaya saaxiibkoodii la socday ayaa wuxuu gelayaa dabin loo dhigay oo ay u dhigeen ciidamada meesha jooga ay gaadha ka haya. Kabacdi wuxuu sameynayaa uu ka bixi kari waaya asxaabtiisii markay maqlaan dhawaaqiisa iyo in saaxiibkood ay dhibaato haysato. Waxay sameynayaan dib ayay ugu soo laabanayaan, waxay kusoo noqonayaan ninkii oo meel ka bixi kari lahaa. Saaxiib ka mida ayaa oranaya ama saaxiibta oranaysa ninka waxaynu kusoo qabanno oo meesha kaga soo jiidno inoo raadi. Kabacdi uu raadinayaa uuna soo qabanayaa qori ayuu soo qaadayaa. Qoriga markuu soo qaado uu soo qabsanayaa. Qoriga markuu soo qabsado waa bahalkii markuu soo qabsado waa uu ka soo bixi kari waayayaa waana bahalkii ma garas. Kabacdi wuxuu sameynayaa waxaa ku soo baxaya bambooyin meesha lagu xiray oo bahalkii ku ahaa. Kabacdi markuu sameeyo way soo qabanayaan marba bambuub baa soo baxaysa. Ayaa bambooyinka waaweyn ee qarxooda aadka u weyn yahay. Afkooduna hadduu istaabto baalaha ama bumbadaasi ay wax yar taabato saaxiibkood hawigooda kacaya. Marka waa in ay keenaan xeelad ay kaga saaraan farsamadan ayna ku soo jiidaan. Qaabkan qoriga horta way isku dayayaan in badan way isku dayayaan inay ku soo saaraan in badan. Kabacdi marba waxaa soo baxaysa miino. Saaxiibadoodu way naxsan yihiin xilligan saaxiibkii maanta waa u dhamaatay khatar ayuu ku jiraa. Isagii waxa taa naxaya oo dhahaya laa ilaaha illa maanta xal lama noolid. Maskax kale ayay sameynayaan. Gabadha ayaa maskax sameynaysa iyadana ugu caqli fiican oo ugu indho fiican. Hataa khatar buu ku jiraa way eegaysaa. Waxay eegaysaa geedka xaggiisa sare. Waxayna oranaysaa hebel orod dhaqaaq soo raadi xadhig ninka inuu ku badbaadino. Xagga sare soo fuul xagga ama ka badbaadin karnaa. Qaabkan kuma saari karno waa dhan walba bamba ka xigto kama jiidi karnee. Kabacdi haye wuu ordayaa xadhig ayuu raadinayaa. Xadhigii horta uu soo helayaa wuxuu ka soo helayaa meelahan. Kabacdi uu soo qaadaya una u imaanayaa. Saaxiibkii nafay kala taagan yihiin waayo dhan walba bamba ku jirta. Waliba miinooyinka hadday istaagnaan lahayn caadi ahaan lahaayeen. Biyaha dhaqdhaqaaqooda ayay isku soo durkayaan. Meeshana waxay ahayd mission loo dhigay baalkii. Saaxiibka horta xadhigga waa soo helayaa geedka xaggiisa la soo fuulay oo uu soo tuurayaa. Qabso ayuu leeyahay. Saaxiib aan ku badbaadiyay khatar cadiin bad ku jirtay. Uu soo tuurayaa una qabsanayaa. Horta wuxuu ku fiican yahay uu kor uga saarayaa oo uu soo saarayaa. Laakiin maxay kuugu taala alaab qarax oo daran haddii bahalaas istaabtaan. Horta kor uu uga rujiyay biyihii uu ka dhex saaray caagihii uu kala baxay. Laakiin yaa huba inuu badbaadayo waayo baali waa aragtaas iskugu soo socdaan. Haddii ay kaliya istaabtaan odayaashan qatala xaggii loo badnaa way u durkayaan. Saaxiibkii xagga sare saarnaa wuxuu oranayaa wax ma idiin sheegaa asxaabay ka carara meesha. Labadayda kaliya nooga carara ama waan dhiman ama wada noolaan. Saaxiibkeenuna kaga tagi maayo. Wuxuu sameynayaa uu ka saarayaa saaxiibadood naxdin oo yaabayin waxay leeyihiin laa ilaaha illa allah. Maanta saaxiibadiin labadaas oo ka samrayaan dhinte ma noola. Kabacdi uu qaadayaa uu wadayaa bahalihii isku soo dhawaanayaan qacantuu qabanayaa uu ka saarayaa meeshii. Markuu geedka u furay saaro ayay baashina dam dhahaysaa oo qarxaysaa. Saaxiibadoodna kala dhuumanayaan waa qaraxi baa yiri kala yaaca. Laakiin maxay ku fiican yihiin bannaan ba isku tuurayaan. Nimankii hawshan dhigtay meeshii qaraxa weyn uu ka dhacay iyo wixii waxay maqlayaan sanqadha meesha ka dhacday iyo qaraxa meesha ka dhacay. Waxay leeyihiin meesha waa la soo galay. Kayntii iyo hawsha aan dhiganay waa la soo galay. Waa inaynu meesha ka cararnaa oo aynu ku noqonnaa meesha qaraxaasi ka dhacay. Waa dabinkeenu dhignay cid baa ku dhacday. Saaxiibadoodu soo yaacaya wax laa ilaaha nimankii ma noola.
ma nolol nimankii kusoo yaacayaan. Kuwii kale iyaguna ciidamadaha way soo ordayaan, way soo socdaan. kuwii asxaabtaana iyaguna waxay isleeyihiin nimankii qiiqe saaxiibadood waa kuwa u imaanaya, labadii nin oo suuxsan oo qaraxii u saameeyey naxdintii iyo bahalkii, laakiin way kacayaan waayo way suuxsan yihiin keliya oo miyir daboolan yihiin. kiciyay isleeyihiin kolley meeshan waa idinku soo socdaa, mar haddii qarax ka dhacay ciidamadii way idinku soo shaqo leeyihiin, waa idinku soo socdaa. saaxiibkii dhaawac baa ku yaala, lugtooda kaga yaala waayo waxaa galay firidhadii bahasha. hadda waxay sameynayaan way dhakhtarinayaan waayo dhaawacyo ayaa ku yaala. kaas isaga waxaa ma qabo, laakiin kan kale isaga waxaa galay bahalaa ku xarooday. horta waa badbaadeen labadiiba, laakiin de maxay ku badbaadeen? wax la oran karin waa badbaado. kuwii waxay sheegeen ciidamada inagu soo socda inaguna soo foodla, waynoo soo dhow yihiin meesha aynu iskaga cararno, aynu iskaga tagno waayo dabinkan iyagaa dhigtay, hawshanna iyaga inagu soo socda. waxay leeyihiin dadba meeshii ku qiiqay bal ku noqda, ama dad baa soo marayo caqabad ku qabsata. waxay isku dayaan inay meesha iskaga dhaqaaqaan, ayna iskaga cararaan. saaxiibadood way isdiideen waayo ka kalaa yidhi may anuu ma tegayo, aduu wada tegaysi tag, anuu cararano saaxiibkana kama tegino. mid kalaa dhaqaaqay wuxuu yidhi anugu meeshan joogi maayo. kuwii kalena waxay sameynayaan ninkii bay tolayaan dhaawiciisii, gabadhiina waa kacda, isagii waa lasoo kicinaya, kii kalea isna lasoo kiciyey. waxay noqonaysaa in meesha iskaga cararaan waayo waa lagu soo socdaa, waa lagu soo dhowya. nin walaba wuxuu leeyahay yaa cagaha meeshan waa layna kusoo socdaa, waa layna kusoo food leeyahay. way soo yaaceen, nimankii saaxiibadoodna waa soo kaxaysteen, waa kuwaasoo muxuu ahaay cararaya. kii dhaawacaanaa tuurtay soo saarteen, waxayna u socdaan inay meeshan ka fogaadaan. ciidan baa kusoo foola ka fara badan kana awood badan. saaxiibadii midba weli aan koomadii ka kicin, ninkii markii khatarta ku jiray koomadii weli ku jira waayo waxaa cilad baa qabsatay. cilada qabsatay waxa weeye naxdintii. ciidamadii waa soo galeen meeshii ciidamada soo galay. labadii ugu horreeyey baa muxuu ahaayey nimankii waxay sameeyeen, way u yeedheen, way u dhawaaqeen. iyagii waa la baacinayaa, bad bay ku jiraan, ciidanka fara badan baa bacsanaya. waynu eegi doonaa bal ciidanka waxay ka yeelaan waayo iyaga isku soo jeediyey ciidankoo sii socdaa. kuwii kale iyagu meesha ka tage kana carareen, laakiin labadan xariife ugu horreeyey markii hore cararayay iyagaa mishan ku jira, khatar bayna ku jiraan in la toogto. dhufays baa loo xidhay, saaxiibadii way arkaan, xaaladooda way la socdaan. kuwii kale iyagu yaacee, saaxiibadood kuwii kale waa gudbeen, wayna ka baxeen meesha. laakiin yaa bad ku jira, labadii saaxiib baa bad ku jira, iskuna soo jeediyey nimanka. waxay maskax noo sameeyeen meesha ku marno, wayn aragtaa bad waynu ku jirnaa, khatar baad na gelisi. iyagii waa is haystaa, mid horta waa carar, midna xabad buu kala daalay ciidankii. laga daba tagaa la yidhi, yaa laga daba harin. way daba socdaan saaxiibadood, cirka xabad u ridaya si looga leexdo, ilaa ay hadda bad bay ku jiraan. ilaa ay hadda waa la baacinaya, laakiin wuxuu sameeyey miinuu aasa. miinuu aasay si ay ula qarxdo. mid kaluu aasaya, mishin buu u dhiga. kuwii kale saaxiibadood iyagu waa kuwan. kii kale isagu miinooyin buu aasayaa. ka waran buu yidhi hebel waa la baacinayay, bad baan na gala, wuxuuna ku jiraa khatar buu ku jiraa. saaxiibkii wuxuu yidhi nakeen ninkaa muxuu ahaayey badbaadin.
iyagaa isku qabsaday meema badbaadin karno ciidan naga fara badan uma babac dhigi karno bulan eegna inay ku heshiiyaan inay saaxiibka soo badbaadiyaan inkastoo isagu uu ku jiro bahalkii isaga way soo eeganaa inkastoo uu saaxiibkood khatar cadim ku jiro gabadha waxay may waxaad uga soo carartay ninka maxay ula dagaalami weyday waxay leedahay waan tegaynaa waan dagaalami doonaa waan aadi doonaa waan eegi doonaa bal meeshay ku dambayso iyo meeshay muxuu ahaayeen ay noqoto isku qabsadee gabadhi waxay tani waan aadaya dib ugu noqdeen